diinahaan ma bannaana inaynu hiil u noqonno israa'iil ilkubraa sidii loo samayn lahaa israa'iisha weyn balaayaan inoo dhoweynayeyna soo jiidana weli dagaaladaa kuma jiro laakiin tallaabooyinkoodu siday u socdaan hadday u socdaan dagaal aynan shaqo ku lahayn baynu gelaynaa kaalaan waxba aynan u haysan shaqana ku lahayn iskana difaaci karaynin ayaynu usii soconnaa inaynu galno waxa habboon madaxdeenna iyo bijaheenna iyo salaadiinteenna iyo cuqaasheenna iyo qabaa'ilkeenna bayna si fiican u fakeraan israa'iil 3 leeyar oo maraykana markuu madfacu soo dhaafo ayuu 5 leeyar oo israa'iil leeday tagayaa markaa wax kastoo ay soo ganaan kow xeryaha ciidan ee uu ku leeyahay waddanka ciraaq baa ka hortaga hadduu dhaafo xeryaha ay urdun ku leeyihiin baa ka hortaga hadduu dhaafo mediterraneanka markabkiisa weyne taagan baa ka hortaga hadduu intaas soo dhaafo markaasuu wuxuu soo galaa 5 leeyar oo kala dambeeya oo israa'iil ay leedahay markaas oo uu ku jiro saadkii maraykan oo uu ku jiro maxay wixii ay iyagu samaysteen 3 iyagu samaysteen iyo 2 maraykan leeyihin ay ku jiraan 5 leeyar oo ka dambeeya israa'iil waxaana arkaysaa inay ku dhacdhacaya waa 8 meelood buu ka tallaaba 8 difaac oo kala gedisan markuu ka tallaabay buu israa'iil gaadhay muslimiintuna waxay dhexda maanta ugu jiraan siiba ahlu sunnuhu mashruuc aanay laa naaqata walaa jamala aanay waxba ku lahayn dushoodaa la isku dilayaa yaa isdilaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala allah inoo dhammaystiray bishii ramadaan inaan soonno oo tukanno oo ilaahay barinno oo cibaadada badinno ilaahayna wuxuu ina leeyahay subxaanahu wa tacaala rabbigiin wuxuu idinla doonayaa ta fudud nolosha wixii fudud ayaa ilaahay idiin sharciyeeyey waxa ilaahay idiin sharciyeeyey maaha wax culays idinku haya ilaahay marnaba idin laba raba baa rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala culays iyo walitukmilu lcidda فعدة من أيام أخر بالليل قفكي مالمو أما بوكي أما سفر كشري أما عذر ذار كلها يستي وهالليل فعدة من أيام أخر هالصوم مال مكلة إلهي سبحانه وتعالى وحلي ولتكملوا العدة إيينا عدة لما يسترتان بإلهي دين للدنيا سبحانه وتعالى أيها الأحبة رمضان سيدا النبي عليه الصلاة والسلام قتل ما يوحشي لما فرحضوت بيلاضي للسائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بسوم مركو أفره مالك استمركو أفره أما رمضان تمركو لما يصدق عشب الصوم وأفره وفرح أبو النبي عليه الصلاة والسلام لكن فرحة هو يموحو هلا maalinta uu ilaahay la kulmo subxaanahu wa tacaala adduunyada farxeed wax weyn maaha wa farxu bilxayaati addunya wama alxayaatu addunya fi laakhirati ilaa mataac ilaahay wuxuu leeyahay dadku nolosha adduun bay ku farxaan laakiin nolosha adduunyo marka aakhiro loo eego wax jira maaha ayuha alaxiba waxyaabaha maalmahan ilaahay inoo jideeyo waxaa ka mid a walitukabbiru llaha calaa maa hadaakum walitukabbiru llah inaa ilaahay weydiisaan subxaanahu wa tacaala calaa hidaayatihi iyaakum hanuunintuu idin hanuuniyey iyo jidka wanaagsana uu idiin jeexay ee aakhiriya adduunba lagu liibaanayo kaa inaa ilaahay ku weynaynaysaa subxaanahu wa tacaala weynaynta ilaahayna waxyaabihii qur-aanka ugu soo hordegay bay ka mid tahay يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر إلهي وحيابي وهرية والنبي غفري عليه الصلاة والسلام حكم دها كان استودوب يوكع أدق ودتك أدق وحكلوا إلهي لي وربك فكبر ربك أنا ويني إلهي سبحانه وتعالى وينين تيسو
والدين توحيابا وقمهم سادر أدد بقرآن كوبي لابما وسورة اللي بعد ما صدحات القرآن كيسو دكته إلهي وحكوب لا بين إنه إلهي وينينه وين ذا إلهي إن عدنا لنعدقن وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إلهي وحليه سبحانه وتعالى إلهي بأمانه ودنسكله الحمد لله إله أن ولد باهن السماء سنين إله أن دنيا عيد الله وداجن ما ملكه ولم يكن له شريك في الملك وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير لمن الملك اليوم لله الواحد القهار تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلهي وحينوت المام يأدون كينا عد الله أبورين عد الله مامولين عد الله دسين عبادة لغو سمايين إنو كلي حق ليه ساوغيد با إلهي وحو نبي سكوليه إلهي وينيه وحتى دا حضابا نبي قال ليه ومن ورائه أمد الله الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل إلهي سبحانه وتعالى وكأن أباهن عد لنمك عد مد ليسو مباهذا مركا أو عد وحلقبته ومباهذا هو العزيز والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون dadku maanta dad kale ku tiirsadaa bini aadamku makhluuq kale eega wax mooda ilaahayna subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wallahu ghalibun ala amri inna allaha azizun hakim ilaahay waa kii aziza ghaliba wuxuu doono fuliya adduunka aan leedahay la maamulin wa huwa alqahiru fawqa ibadi adoomihiisa waa ka isagu qahre ee maamula gaaliya muslimba لكن ددكو مركو حوغا اسبيدو وكبره إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى بإلهي المامية سبحانه وتعالى إلهي وحلي وكبره تكبيرا أيدي هرار الأخرين ولتكبروا الله على ما هداكم جيل كي مسلمين تهوري إلهي بكوينا قلبي قوله إلهي بأركتدو دكوينا إلهي بيسوين قيمينيين دبتنا مخلوق دم أكتوده مهام بها وحليتوها ولذلك بقى يغير أبا بعدين الدولة دي ووينا يعد والبسكدعي إلهينا سبحانه وتعالى وأوهيلي حصوص تبا إلهي بدر مركا ضعيف كهيدين إلهي سبحانه وتعالى يدين قرقا إذا صدح بغلون يوحقا يرى أي دوني دي اسكدعينيه maantana muslimiintu waa mustabaax dhulkooda waa la banaystay waxay u eeg yihiin xadiidkii uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam uu nabigu yidhi aakhiru zamanka waqti baa dhici doona ay dadku sida xeedhada la cunayo isugu kin yeedhan doonaan saxaabadii ragga iska dhicin jiray markay xadiidkaa maqleen way yaabeen markaa waxay yidhaahdeen dee malaa wax kale maaha amin qilla ma intaanu yaraanno oo gudhno ayaa dunidu markaa dhaboobaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay balantum kathiir yaraani ma jirto waa tiro badan tihiin buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam laakiin tiradiinna way dalooshaa walakinakum ghuthaaun ka guthaa'i sayl buu nabigu yidhi tiradiinnu waa badan tahaye tayadiinna yar baa ilaahay leeyahay ayuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxaa la mid tihiin daad xoorka daadku kaxeeyo daadka daad xoortan xumbadan iyo xashiishkan iyo waxa kale meel ay u socdaan male shay ama shakl qaab male meeshii daadku qabtaa un bay la qabtaan laantii yare soo gasha biyaabana badh bay la hadhaa muslimku noocaas uu noqonayaa buu nabigu ku tilmaamaya meel waqti aanay wasni dunida ku lahayn cid walba ay raaci doonaan mid ka liita ay dabageli doonaan saasaa ku dhici doonta buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam iyo ahla xibba dunida maanta waxa ka socda waa arkaysaa
وسيدا لوكال حوق وين اللي سبوبية مسلمين تنوحي دحدا ما أنت وجرا سيبا أهل السنة مشروع أنا لا ناقة ولا جمل أنا وحبك كل حين دشوا ده اللي سكود ليا يا استيليا لما مشروع كله المشروع السفوي يا المشروع الصهيوني مشروع الصهيونية وإسرائيل الكبرى الرادينية إسرائيل تبلارن ودوني دا إن بدن وكم دا يأخذ ما ينسو ووضع كي دوني دا وين ومديدين وياهي مشروع عصين فليو إيوه مشروع كاكا سهر جيدة ومشروع صفوية الشيعة الرافضة والله يقول ندتك بقى بالسنة ونعب ولا لا إله إلا الله محمد رسول الله آل الصحابة دي نبي محمد وردن ودد ونكسر وحكى لصار مين هي قاركود لين أفر بابا مؤمن كهاي أنت كلواتي من الفقودي أو أركا تاريخ خروتك تي إن يدب سعلية مركي أفغانستان لو دولي مريكان يجا وفره ودو عاوي عراق مركي لبابي إني يجا لبابي يوردن كلواتشو سوريا مركي لتومي ده حزب الله هي كوحد ودا ودغالميسا هي ايران جنرالديدii waxeeda yey la dagaalamayeen dad faramaran oo ahlu sunna oo dhulkoodii laga kiciyo qaxootiya oo Suuriyaana la dagaalamayeen idan waa laba mashruuc oo midna aanu ahlu sunna waxba u haynin laakiin marka la eego diin ahaan mowqifkeenu muxuu yahay موقف كان وحويا ظلم إلهي ما جعله عندنا قال يا مسلم طالع عندنا إلا ظلمية إيران ما أنت ولا ظلمية يضع مكرم يسنى هنا أهل السنة خير وضن هي وحنا لنا هدنا لكن ولا ظلمية إلى هنا قراك وحكت المامية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إلهي وحلي وركوا مؤمنين تقوموا لله إلهي درتي وكع ووحن نقطة شهداء بالقسط عدالتك وكما خاتك ولقن ظلمها تاجرين با إلهي إلهي مركز إلهي وحلي ولا يجرمنكم يي إذنكو حنبارن شنآن قوم دول عرأ وقبطان على ألا تعدلوا إن إذن عدالة سمينين يدنكو حنبارن با إله إليه هبل وانو عريساني وتصفية الحساب وشالي بو حان نقول لغانا ونمرك يغانا نقول لغانا إلهي وحلاي تاسي ما شرتو عد هكو حد قد بنا اعدلوا هو أقرب للتقوى ما إله إليه ورع عدالة السمائية عدالة أدو الله كعبسجه إسلا في سورة المائدة وهي إلهي سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وريا كو كلف با إلهي لا يعرأ الدول قبطان كوي مساجد كيدين ديدي وقرشتي أيسهي النبي عليه الصلاة والسلام مسجدك كسو صار دولكودي ka qaaday ayaa hadana ilaahay subhanahu wa ta'ala cadaalad markay timaado kuwa ina ku xad gudubtaan yay caraa u qabtaan idin gaarsiin ba ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay markaas wuxuu leeyahay wa ta'aawanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'aawanu 'ala al-ithmi wal-'udwan wattaqullaha inna Allaha shadidul 'iqab ayyuha al-ahibba diinahan ma banaana inaynu hiil u noqono Israa'iil al-kubra sidii loo sameyn lahaa Israa'iisha weyn waa Masar qayb ka mid ah waa Sacuudiga qayb ka mid ah waa Ciraaq inteeda badan waa Suuriya qayb ka mid ah waa Lebanon waa Urdun intaasoo la isku daro ayay waxay leeyihiin Israa'iil baa xaq u leh inay qabsato Trump iyo Netanyahu iyo kooxdiisu waxay u arkayaan waqtigani inuu yahay waqtigii fursadu jirtay ee Cyprus Beacon dib loo bedeli kari lahaa
سايكس بيكو ومستعمر كي هوري فرانسيسيا إنجليز مركي دوني دا قيب سنيين يجا حريج ما هي يرو جاحي واللبنين أو ككلا ترسل لبضا ودن هي سايكس يبيكورا لبضان إن وحي سله شيء سيدان ما أنت عالم الإسلامي وجوج أيين وجوجيان أنت إنجليز أو قادو أنت دولة كردك أنت عين كان كردكنا أنت أنسا كردكنا حدودها هني مكاين سكوا هاي السنة ولا صاحي ده والمسلم بيسكوا هاي خلافة عثمانية كتلين سيمر كي دونتين مسلمون بيهاي لكن مقلدة صواحي قوان سطا أنت يددك قيب صدان إسرائيل لو خاطئ إنه كتشوجنا يهود دا يوروب شوكتا يناس كسر ربو وميل دجين عالم الإسلام بميل لقدتشي كواس واحد هاي فرنسيسي إنجليز مريكانيين كوحوا لي هاي دول كاكوير إذا حوينا ترى محو خد بدي إسرائيل دول كوكويري مركا waxay u baahan tahay bulay dhul balaan safiirkiisa Hakarbi ee fadhiya Bayt al-Maqdis oo safiirka dhan ee Mareykanka u fadhiya afka dawladda ku hadlaya isna waxa la weydiiyay Netanyahu waxaan u sheegay balka waran Israa'iil shaballaadana in Masar qayb la siiyo Ciraaq oo Suuriya oo Sacuudi iyo Lebanon oo maxaa ku jira buu yiri qaadato maxaa ku jira buu tilmaamay يعني waa iska suurtagal ah wax weyn ma aha oo la isku mashquuliyo idan ayuha alahibba Israa'iil iyo Mareykan wuxuu rabaa in Israa'iil ilaaliyo ballaadhiyada meeshana inay iyadu madax ka noqoto caalam islaamina carab iyo cajamtiisaba Netanyahu inuu u taliyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil inuu uga taliyo ولذلك إسرائيل سيد الله إلالنا يو قواعدي سوما إلاليو خليج كالعقب كقرت تريليون نقاط وحوش يجانا يا مقابل الحماية إلالنا ثاني ذن إلالنا يو خليج كنا الشدال كودي بالا قراعية مقالوين كودي بالا قراعية حريه كويا لا قراعية إسرائيل سدح لاير أو مريكنا مركو مدفع وصور دافو أيو شين لاير أو إسرائيل الذي تجي مركا واحد كستاي سوق جنان كو حريها عيدنا وكل يودن كعراق بقى هرتجا هدور دافو حريها يوردن كل يوم بقى هرتجا هدور دافو ودترينيان كمركب كيسوين تاجن بقى هرتجا هدو أنت صور دافو markaas wuxuu soo galaa shan leeyar oo kala dambeeya oo Israa'iil ay leedahay markaas oo ku jiro saadkii Mareykan oo ku jiro maxay wixii ay iyagu samaysteen saddex iyagu samaysteen iyo laba Mareykan leeyahay ay ku jiraan shan leeyar oo ka dambeeya Israa'iil waxaan arkaysaa inay ku dhacdhacaya waa sideed meelood uu ka talaaba sideed difaac oo kala gedisan markuu ka talaabay buu Israa'iil gaadhay kuwii trilyan kuwa waliba bilyanuu siiya kuwii trilyanada siiyeyna trilyan bay siiyeen kuwii trilyanada ugu daaqayna waa samadoodu waa makshuuf wax kasta ku dhacaya bale waxa la rabaa intay dagaalka galaan markay si fiican isu galaan inuu Mareykan ka baxo la yiraahdo idinku isteelay labadiinaba hubkaan idinka iibinayna si Ciraaq iyo Iiraan 8 sanadood bay isteelayeen labadaba hubkaan laga iibinay إيران تاس إسرائيل بهم كي من جرتي مركي العراق استيلين حقا كلنا مريكاني با خليج كل عقتي غادن يكي بني سديت سنادود مركي إلا بدا وطن بدوك الله دقاي هي اللي بس صدبا وحرنا وحلو كده ودا عراق وهيد مركا وده وين دوني ده مركا لا ايغو دور وطن او حق بدين لا بابيو حدنا هذا ربع خليج كنا إني دجال قلا مركز سفي عن السوق قلا إني يجود داوضان ويرهدان هم كانوا يكيبينين هبكا هوية وحوق السديل إلهي وحو كتاب في القرآن كله كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون سوى قالك ورمي يا إلهي وحليه حالك السدون نقونا يا با إلهي لي مالنتا إذا كحوق بطان هذا إذا كحوق بطان حالكم محن نقونا يا با إلهي لي إلهي باك ورمي يوحو حالكم نقونا لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة بلد
iyo qaraabanimadtoona idiin ilaalin maayin baa ilaahay yidhi subxaana watacaala waa idinka takhallusaya waxay cuhuud galeen oo dhan waa idin ilaalina xoolo keena kuma ilaalin ilaahay wuxuu leeyahy laa yarqubuuna fiikum ila walaa dima ballanna idiin ma xijinayaan insaaniyad iyo wax kale oo lagu ilaalinayaan ma jiro laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dima wa ulaa'ika hum alfaasiquun baa ilaahay ilahay wuxuu leeyahy yurduunakum biafwaahim markay idinla hadlayaan way afmacaan yihin af macaan bay idiin sheegayaan cahdi baynu kala qoranaynaa annagaa idin ilaalinaynaa kuwa annagaa idin kala hadlayna ma soo gudbayaan kuwa kan saasaan kuwa odhanaynaa qawaaciddeedana waana siinaysaa markay kula hadlayaan afkaa macaan bay sheegayaan ilahay wuxuu leeyahy wata'baa quluubuhum waxaanay afka ka sheegayaan qalbigooda kuma jirto bale ilahay wuxuu leeyahy wa akharuhum faasiquun intooda badani waa faasiqiin cuhuud male maraykanku wuxuu yidhi ciraaq waxaa gaadhsiinayaa dictator baa haysto xorriyadda ciraaq waxaa loogu abaadguday gawantanamo in lagu guro dadkeeda iyo abu qurayb iminka abstein files baa laga hadlaya shalayna abu qurayb bay rag iyo wixii ciraaq la qabtoo dhan inta la qaqaawiyo in la yidhaahdo dusha iska fulfula oo dusha la iska saaro oo iyagoo dusha iska wada saaran weliba laydh lagu qabto oo qoladii xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyadda waday markay xoog bateen saasay u galeen ciraaq abnaadeedii ninka caruurta ku farax xumaynaya jazaa'irka yarare maraykan u dhowaa madaxda ah miyaa adiga kuu naxariisanayo oo wanaag kuu gelayo oo muslim kale kaaga hiilinayo oo ku hagaajinaya ayuha alaxiba balaayaan inoo dhoweynayayna soo jiidana weli dagaaladaa kuma jiro laakiin tallaabooyinkoodanu siday u socdaan hadday u socdaan dagaal aynan shaqo ku lahayn baynu gelaynaa dagaalaan waxba aynan u haysan shaqana ku lahayn iskana difaaci karaynin ayaynu usii soconnaa inaynu galo waxa habboon madaxdeenna iyo mijaheenna iyo salaadiinteenna iyo cuqeesheenna iyo qabaa'ilkeenna bayna si fiican u fakeraan sida fiican inay u fakeraan waxa weeyaan haddaa xortiin waddankani hadduu xoryey hadduu qofku wuxuu doono odhan karaa hadduu halkuu doono mari karaa halkuu meeshuu doono seexan karaa hadduu walilaahi alxamdi nabad ku haysta waad nabad waayi waa madaxdoodii kuwa meel walba lagu laynaya maaduu kaa jecel yihi hadduu kula yimaado hadduu kula soo dego maaduu kaa jecel yihi idan haddaad xor tahay ee gumaysi ha doonan waddankani hadduu xor yahay bale waxaan odhan karaa meeshan aynu degannahay caalamka ilaahay abuuree maanta dunida ka jira waa dhulka ugu xorriyad badan haddii xorriyadun qiima ay leedahay laakiin warkaalayana gumaystayanan inagoo odhanay soomaalidu waxay sheegaan nin reer miyiyabaa berbere tegey bay yidhaahdaan markaasoo arkay laba xamaaloo isdilaya markaasuu yidhi war nimankani maxay isku dilayaan laba la kala qaban kari laayay maxay isku dilayaan waa xamaalistay isku haystaan buu yidhi oo iminka nimankaasi ma aniga hallay raray isku dilayaan buu yidhi yacni wuxuu ninkaasi xor buu ahaa meel aan cid madiidin loo noqon buu ka yimi baadiyo waa xor waa meel aanu ninku dhanku doono u dhaqaaqo meesha afka taaga cidna aanu ka cabsan aan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala dadka baadiya ku noole wuxuu arkay ninkani dushayda ha la raro miyuu u dagaalansayen buu yidhi u dagaalamaya war inan sidii xamaalkaa noqonin hana la raro u dagaalamayay haddaad xor tahay ee xorriyaddaada ha iska tuurin haddaad xor tahay ee xorriyaddiina ha tuurin ayuha alaxiba ولعلكم تشكرون بإله إليه سبحانه وتعالى آياتين أخرين وحا إلهي رمضان تاسئية وحا صورنا دين سمي إن إلهي ومهد نغضى سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام حتى المامي رمضان تمركي دماته رمضان ودن إلهي بين عابده إنه ومهد نغين رمضان مركي دماتنا وحلو باهي هي إن نولي شكر النغنى كو مال انت عيدين زكاة الفطر بين واجبة qof kastoo xor ah iyo dakara iyo cabda iyo unsa iyo sagiir iyo kabiir qof walba inuu bixiyo saac raashina oo inoo noqda طهرا للسائب من الرفث واللغو وطعما للمساكين
dembigeenii inaga dhacdhacay wixii inaga sahwi inaga galay ramadaanteenina inaynu ku maydhno masaakiinteennana inaynu naxariisanno oo quudinno inaynu sadaqaadka badsanno yasaluunaka maada yunfiquuna qul maa anfaqtum min khayrin falilwaalidayni walaqrabiin walyataama walmasaakiina wabni الsabiil wama tafcaluu min khayrin faina allaha bihi caliim ilahay wuxuu leeyahy waxay ku weydiinayaan waxay bixinayaan waxaa bixisaan baa ilaahay yidhi u horraysiiya labada waalid kuwa kuu dhowo qaraabadee baahan agoonta masaakiinta ibnu sabiilka wax kastoo khayr samaysataan ilahay waa idinka abaarmarinaya maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum waamantum baa ilahay muxuu cadaabkiina ku falaya haddaa ilaahay u mahadnaqdaan ilaahay muxuu cadaabkiina ku falaya haddaa ilahay u mahadnaqdaan oo iimaan laydinka helo ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala isagaynu u mahadnaqaynaa isagaynu caabudaynaa inuu inaga soo jebiyo abaarta beledkeenna inuu ka dhigo beled nicmaysan meel khayr qabta in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo ilaahay wuu inoo barakeeyey inuu inoo badhaadheeyo waxaynaga dhiman in alle subxaanahu wa tacaala inoo toosiyo inta madaxda inoo ah in ilaahay ku toosiyo dariiqa xaqa ah innagana inuu inaga dhigo kuwii xaqa ugu taageera dadku markay xaqa qaataan dad badan ubaa kasoo hor jeesto nafta isugu keena ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagana inuu xaqa tuso innagana kuwii xaqa ku dhiirada ee ku dhinac istaaga in ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga yeelo inta bugta in ilaahay caafiyo subxaanahu wa tacaala inta baahan ilaahay baahida ka saaro inta xabsiyada ku jirta dulmi ugu jirta in ilaahay ka soo daayo qof kastoo muslim oo dunidan dhibaato ku haysato in ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaatada ka reebo ghaza kuwii lagu dulminayay dunidu intii dambena waa qayladiina xataa waa ka daayeene ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu faraj khayr qabo u furo ilaahay inuu ka dulqaado balaayada haysata ilaahay subxaanahu wa tacaala gaajo iyo baahi iyo qaxoonti iyo dagaal iyo colaad baa haysteen ilaahay inuu ka saaro kuwa khaliijka masaakiinta in la isku duldilayana in ilaahay subxaanahu wa tacaala nabadgelyo siiyo gaalada in ilaahay ka dulkiciyo iyagana in ilaahay ku hanuuniyo gaalada meeshooda joogta inay iska eriyaan inay iyagu isku tashadaan oo dadka muslimiintii midoobaan cidi kama xog badna kama tiro badna kama lacag badna kama hub badna xataa hadday maalgelinayaan balaayiinta alla gaalada wax lagaga iibsanaya hadday iyagu kuwooda geliyaan hubna waxay doonaan waa samaysan karayaan cid walba waa iska celin karayaan laakiin way tawfiiq la'yiin nin walaalkiiska eegaya ayuu iska celinaya dadba kuugu dhow dadka ka kuugu dhow haddaad iska ilaalinayso yaad iska celin karaysaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ah ha ka yeelo kuwii xaqa ku midooba ee ilaahay kitaabkiisa qaata rabbina wuxuu ina leeyahy wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ramadaan dhammaantay allana wuxuu leeyahy ilaahay caabuda ilaa inta geeridu idinka imanayso ilaahay subxaanahu wa tacaala saasaan ka baryayna inuu cibaadada inugu sugo inaanu inaga dhigin kuwa billa ilaahay caabuda bilo kalena ilaahay u dhabar jeediya ina ilaahay inaga dhigin subxaanahu wa tacaala wixii dhibina haysta xaggu doonaha inaga haysteen dhib amni dhib dhaqaale dhib abaareed ilaahay inaga wada kor qaado dadkana wixii samahoodu ku jiro aakhiradooda iyo adduunkoodaba ilaahay ha ku hanuuniyo subxaanahu wa tacaala وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال تعالى في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أيها الأحبة اتقوا الله حيثما كنتم وأتبعوا السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر للمسلمين حيث كانوا وانصرهم حيث كانوا اللهم انصرهم يا عزيز يا كريم اللهم اغثنا برحمتك اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين